السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا مال والبودي قد داونيسان يسوع البودي ما نسامبا. برنامج كان وحن كجا خلدي دونا سيدي عن خراي وشجيبة دراسة أي سمايسي حياة عالمية ومركا أنت بدن كور هنتا العدوينك دقاقك يكون السياسات مركا سامين تإليه وحيد دراسة دانو كهذا ليسها khilaafkii siyaasiga ahaa ee dastuurkii Soomaaliya ka dhashay iyo waliba weeraradii al-shabaabka oo markaas ziyaaday ay ka hadlaysaa waxa ku jirta xogtan hay'adaanu ay daabacday Mareykanka waxyaalo tiro badan oo aysan dadku ka warqabinin oo waliba la oran karayo waxyaalihii fashiliyay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab waxay ka hadlaysaa deegaamada ugu tirada badan oo markaasi dagaalada ay ka dhaceen iyo goortii ay dhaceen waxay ka waramaysaa arrimo kale oo runtii marka aad u tiro badan bal marka analysis yar oo kooban oo simple ah ayaan ku sameynaynaa si ummaddu ay u ogaadaan waxyaalaha dalkooda laga qorayo iyo xogaha marka dalka laga aruurinayo hay'adaanu waxay diiwaan gelisay 205 dhacdo oo isugu jira kuwa dagaal iyo kuwa siyaasadeed muddadii markaas u dhaxaysay 23kii March ilaa 19kii April waa muddo bil ka yar ay waxay diiwaan gelisay 205 dhacdo oo markaas isugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dagaal ah oo markaa lagu dhintay waxyaalaha ay hay'adan ay sheegtay runtii la yaab kale muddada markaa bisha ka yar ayaa waxay tahay in inta muddada ah ay ku dhimatay 539 qof oo kala duwan ayaa ku dhintay halka dhacdooyinkan ay 205 dhacdo ay markaa kala duwan yihiin dhimashadu waxay kor u kacday baa la yiri boqolkiiba 13 ay markaa kor u kacday markii loo fiiriyo bishii hore February iyo March markii loo fiiriyo ilaa ay 13 ay kor u kacday baa la leeyahay laakiin wadarta guud ee dhacdooyinka 205 ah ayda hoos u dhacba ku jira ilaa ay 4 boqolkiiba ay markaas hoos u dhacday baa la leeyahay waxyaalaha markaa siyaasadeed oo waaweyn oo dalka ka dhacay ay qaar ka mid ah soo qaadanayaan iyo waliba kuwa kale dagaalka lagu dhintay ayana qaar markaa kamid ah qaybta siyaasadda markii la fiiriyo waxay leeyihiin 30kii March bishii aynu soo dhaafnay ayaa waxa dhacday in baarlamaanka Soomaaliya markaas ay meel mariyaan wax ka bedelkii dastuurka arinta markaa waxay u diiwaan gelinayaan events markaa siyaasi ah oo markaasi u muran ka dhashay u diiwaan gelinayaan waxa kale oo ay yiraahdeen 31diina Puntland ayaa diiday dastuurkaasi la meel mariyay afartii bishii Abriilna waxay yiraahdeen dawladda Soomaaliya ayaa cayrisay safiirkii Soomaaliya safiirkii Itoobiya u fadhiyay markaa Soomaaliya isla afartii bishana waxa xilka laga qaaday yiraahdeen agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda Mahad Salaad 7 Abriilna ra'iisul wasaaraha ayaa isku shaandhayn sameeyay waa ilaa 6 dhacdo oo muddo yar oo kooban asbuuc markaasi dhacday markii aad fiiriso waa dastuurkii oo wax ka bedelkiisii markaasi la meel mariyay Puntland oo diiday safiirkii Itoobiya oo la cayriyay hay'adda nabad sugidda oo ninkii u sareeyay markaa asaguna xilka laga tuuray iyo prime ministerkii oo markaa isku shaandhayn sameeyay waa muddo yar oo asbuuc ah ay arrimaha waaweyn oo siyaasiga markaa ay dhaceen waxay arrinta markaa muujinaysaa sida dalka uusan u fadhinin xagga siyaasadda markaynu ka eegno markaysan waxaayoo dhan waxay abuureen kala shaki iyo kala qaybsanaan iyo qalqal iyo muran iyo is-afgaran waa xoog leh ay waxay dhan markaa isaween dhanka kale markii la fiiriyo dhacdooyinka ay listigareeyeen oo dhimashada keenay al-shabaabka ah 23 March waxay yiraahdeen al-shabaab ayaa markaasi gaari qarax ah ku weeraray xaafadda loo yaqaan Busley oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo dad tiro badan markaa ay ku dhinteen labadii bishana diyaaradaha duqeeya al-shabaab ayaa duqeymo ka geystay baa la yiri gobolka Shabeellada maxaa la yiraahdaa hoose ilaa iyo 20 ayaa ku dhimatay 6 bisha Abriil waxay yiraahdeen al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada meel ay markaasi xarun ay ku lahaayeen magaalada la yiraahdo Balcad oo ka tirsan Shabeellada Dhexe dad xoogaa ah bayna ku laayeen bay yiraahdeen marka arrimahaas marka waxay muujinayaan markaa sida arrimaha siyaasiga ah iyo al-shabaab ay xiriir isku leeyihiin markasta oo siyaasadda dalka aysan fadhinin
waxa ka faa'iideysanaya leeyihiin kooxaha argagixisada dhanka kale waxay ka waramayaan sida dagaalkii lagu jiray ururka al-shabaab uu dibadhac xoog leh marka ugu yimaaday iyo fashilkaasi cidii mas'uulka ka ahayd ay ka waramaysaa xog aruntan ay sameysay hay'adaasi reer galbeedka ah waxay yiraahdeen maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxay ciidanku la kulmeen bay yiraahdeen setback bay la kulmeen bay yiraahdeen ama dib u dhac ay ciidanku markaasi ay la kulmeen taasoo keentay inay maleeshiyaadka al-shabaab ay la wareegaan meelo kala duwan waxay kaloo sheegeen ciidamada ammaanka ay isaga baxeen dhowr saldhig oo markaasi ay ku lahaayeen deegaamadaasi arrintaasi oo markaa muujinaysa ay yiraahdeen xurguf hoose oo ka dhashay fashilaada dhanka saadka ah iyo musuqmaasuq iyo khilaaf dhanka maamulka ah ayay arrintaa ku sheegeen markaysan in fashilkaasi u dhaco oo ciidanku ay ka baxaan meelo kala duwan oo al-shabaabku ay qabsadaan ayaa waxay arrintaas ka timaaday baa la yiri musuqmaasuq iyo kala qaybsanaan dhanka maamulka ciidanka ah iyo arrimaha bay leeyahdeen yay u dhaxaysaa marka arrintaas waxay arrintaas u dhaxaysaa baa la yiri wasiirka gaashaandhigga Mr. TikTok iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Ibrahim Sheekh Muhidiin ay arrintaas u dhaxaysaa baa la yiri waxayna markaasi isku khilaafeen baa la yiri qorshaha iyo saadka hawlgalka looga hortagayo kooxaha nabadiidka waxay intaa ku daraysaa xogtu dawladda Soomaaliya ayaa ku guul daraysatay inay xaliso khilaafkaasi ayadoo markaa dawladdu abuurtay khilaaf dhanka hoggaanka ah oo niyad jab ka dhex abuuray ciidanka dib dhac badan u keenay shaqadii ay markaa qabanayeen tusaalaha ay soo qaateen arrinta ay keentana waa dib u dhigii dib loo dhigay in la doonayo markaasi in la xoreeyo deegaanka la yiraahdo galhareeri oo markaasi al-shabaab ay ku xooggan yihiin oo kana tirsan maamulkaasi galmudug xogaha tirada badan oo ay soo gudbisay hay'adaanu dhowr waxyaalood ayaan rabaa inaan ku koobo oo markaasi aan isleeyahay waa arrimo waaweyn marka ugu horeysa waxaynu arkaynaa in muddo yar ay 540 qof ay dhimato waxay muujinaysaa runtii sida amniga dalku gacanta uga baxay meelaha ugu daran ay tahay labada shabeelle iyo mudug marka ay tahay waxa kale oo aan ka dhax baxsan karnaa xogtaani waa in dagaalkii lagu jiray ururka al-shabaabka uu markaasi fashiliyay khilaaf u dhaxeeyay wasiir TikTok iyo ninka loo yaqaano ninka taliyaha ciidanka ugu sareeya Ibrahim Sheekh Muhidiin labada khilaaf u dhaxeeya oo dawladdu marka ay xalin weysay ilaa haddana wali ay joogaan ayaa sababaya ama sababay fashilkii ciidanku ay ku fashilmeen ama ay dagaalkii ay ku jireen oo guulaha markore ka gaareen inay guulaysi haysan waayaan finally waxaan fahmaynaa amnigii oo marka sida u sii halaabaya oo wax ka qabadkiisii aan la qabanin in la abuuro toobigyo siyaasi umada sii kala qaybinayna waxa la oran karayaa marka waxa lagu sii shidayaa dabka dan laga leeyahay waxa kale oo jira xoga kale oo marka sheegaya mar walba oo uu yimaado fashil amni inuu Xasan Sheekh Maxamuud sameeyo arrin siyaasi ah oo lagu qariyo marka fashilkaasi inta badan waa xog ay aaminsan yihiin dadka indhergaradka arrimaha siyaasadda marka la socdo amnigi baa lagu fashilmaya dab baa la daaraya siyaasi xagga lagu mashquulaya waxba dhacaya arrin kale oo siyaasi ah sameynaya markaysan waxyaalihi hadda ka dhacay hotel SYL oo muranka badan dhaliyay tuhunkana keenay daqiiqadii ilaa 10 sakan ahaa ee albaabka la soo galay hotelka laga jaray muuqaalkii dawladdu soo bandhigtay ayadoo arrinta la dul taagan yahay ayaa la daaray maxaa la yiraahdaa arrimihii dastuurka waa hal tusaale oo ka mid ah arrintaasi anigoo maalinka falanqeeyay oo aragtidaasi soo saaray 10 daqiiqo iyo meelo kale badan aan ka tusay ummadda ayaa isla dawladii naftirkeeda inta ay report gareysay ayaa muuqaalkayga laga saaray barta Facebook copyright ayaa lagu dacway oo maxay tahay waxyaalihi ay dawladdu soo bandhigaysay ee public domains-ka ah ayaa laga saaraya ayadoo wali dawladdu ay YouTube-koodii iyo TV-goodii kalaba TV-ga qaranka oo isla muuqaalkii ku jiro ayaa dadka loo diidayaa inay markaasi ay analysis ka sameeyaan waa tusaale kale oo muujinaya markaa sida aysan dawladdu u dhageysanaynin aragtida ka duwan oo aysan ugu qanci karinin in taa dalka la leeyahay aragtina aynu dalka ku leenahay oo waxa qaldan hadaynu sheegno aynu xaq u leenahay markaysa
dowladda alaabtii public domain baa la yidhaahdaa waxyaalaha ku jira janaalada dowladda ayadoo malaha shacabka iska ma arkaysaa laakiin waxaa loo qaatay wax personal ah baa loo qaata waxaan hore u arki jirnay ama u maqleynay xamar annagaa leh dowladnimada annagaa iska leh hanaloo kaga tago guriyihii la boobayo hadda marka xataa waxyaalihii ummaddu ay lahayd oo ummadda loo soo bandhigayay unuka iska leh baa lagu dul qoraya markaysaa arrimahaas oo dhan marka waxay sii murjinayaan qof walba oo Soomaali ah oo wuxuun rajaa ka qabay in dowladda markaas la helo aad baan in salaamaya meel baad iga daawanaysaanba isoo baad i maqlaysaanba